daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudanow arrintii Axmed Biif walaalkeeni oo ku dhawaad Cabdicasiis Lafta Gareen ka dalbaday codsigaasoo Cabdicasiis Lafta Gareen uu u aqbalay ayaa waxay ahayd inuu ka dalbaday Axmed Biif oo guul uu codsigiisa ka gaaray. Haddaba codsigiisa guusha uu ka gaaray daawada kuu sheego in uu ka dalbaday Axmed Biif live hadda kahor uu soo galay Cabdicasiis Lafta Gareen in uu wax ka qabto hooyadiisa Axmed Biif la jirdilayo, in meesha askar loo diro adeerkiisa la soo xiro. Arrintaas codsigeeda oo loo aqbalay laga soo jawaabay ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalo iyo Axmed Biif oo Cabdicasiis Lafta Gareen u mahadceliyay markii falcelinta degdega iyo jawaabta isla markiiba adeerkiisa la xiray, xabsigana loo dhaadhiciyay, mar dhowna la maxkamadeyn doono. Loo ballan qaaday arrintaas oo ooyay oo ummadda muslimiinta oo dhan uu ka dalbaday, ummadda muslimiinta oo dhanna wuu u mahadceliyay, gaar ahaan Cabdicasiis Lafta Gareen aad ugu mahadceliyay. Fadlan daawade waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal uu soo duubay Axmed Biif walaalkeena oo xajka xaramka ku sugan, hooyadiisa jirdilka in laga daayo oo ku dhawaad ka ooyay social media aad u balanbalay, 2 mar isku xigto asoo xaramka jooga adeerkiisa ka oosiiyay. Ku dhawaad markaa dambe oo Cabdicasiis Lafta Gareen la hadlay uu dhahay arrinteeda Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa u bandhiganaya. Cabdicasiis Lafta Gareen waa in uu wax ka qabtaa arrintan oo ka dhaleeceeyaa oo askar meesha u diro oo la soo xiro. Isla markii Cabdicasiis Lafta Gareen oo tilaabo sharci degdeg ka qaaday markuu meesha askar u diray daawade oo isla markiina adeerkii la soo xiray iyo wiil adeerka ay wax isku yihiin, labadoodaba jeelka loo dhaadhiciyay. Isla markiina Axmed Biif markuu arrinta maqlay muuqaal la soo duubay uu daawaday in oo loo sheegay adeerka in la soo xiray. Isla markiiba muuqaal ayuu Axmed Biif soo duubay asoo xaramka joogo. Cabdicasiis Lafta Gareen ayuu u mahadcelinayaa. Fadlan daawade muuqaalo ayaan kula wadaagi doonaa. Soo dhawow daawade. Axmed wuxuu naga codsaday oo maaragtay uu ka codsaday madaxweynaha wuxuu reer Koonfur Galbeed in maaragtay dhibkii loo geystay dadkii u geysteen in maaragtay gacanta lagu soo dhigo. Marka waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba reer abtigay maamulka ugu horeeyo reer Koonfur Galbeed, madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo dhammaan wasiirada. Haddaad muuqaalka soo daabatay daawade waa naga codsi, fadlan janaalka oo noo qurxi, subscribe noo dheh, gambaleelkana u furo. Bal asxaabay waa intaas oo kaliya codsigeena. Muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa ku kulmi doonaa.